وكلا له كملا وكذا الملو عسى يا لبي يا لبي xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha isboortiska gobolka Karkaar duqa degmada Karaaxo odayaal nabadoono cuqaal waxgarad dhalinyaro iyo haween sidoo kale xafladan ayaa lagu daafuray xafiis cusub oo yeelanayo TV-ga dawladda Puntland degmada Karaaxo ee gobolka Karkaar isla markaasna ay shacabka iyo maamulka degmada si weyn u soo dhaweeyeen iyagoo sheegay in loo qabay baahi weyn kasoo qaybgalayaashii munaasabadan lagu weyneynayay 1 Agoosto sanad guuradii 19aad ee Puntland ka hadlay waxayna cabireen dareenkooda ku aadan xafladan 1 Agoosto inoo ka hambalyeynaya soo dhaweynaya xafladda 1 Agost oo ah maalintaas aynu wada garanayno oo ah maalintii asaaskii Puntland reer Puntland oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo aad ugu faraxsanahay maanta halkan dareenkaygu aad ugu faraxsan yahay inaynu inaga bulshadeena dhamaanaa inuu labisanahay calankii Puntland aynu taaganahay halkan maxay tahay caawa xafladeen farxadda Puntland aynu la qaybsanayno dhamaan dadweynaha Puntland waxaan leenahay horumar iyo nabad oo xafladan la maamuusayo oo Puntland oo dhan caawa ka jirta ayaan soo dhaweynayaa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan kaloo soo dhaweynayaa TV-ga aynaan lahaan jirin haddaan nahay reer Rako oo caaway 1 Agoosto sanad guuradii 19aad noo xusaya dib baan soo dhaweynayaa TV Puntland oo caaway inoo tahay oo xafiiskiisa laga furay meesha xafladan waxaan leeyahay hambaliyo oo ku beegan 1 Agost oo ah maalintii dhidibada loo taagay Puntland taagitaankeeda markii loo taagay qorshihii loogu taagay ama istagadii waxay ahayd in lagaga faa'iideysto laguna horumariyo dadka degan Puntland wax walba sanad guuradan oo kale mar walba waxa laga xusaa deegaanka degmada Karaaxo waanu soo dhaweynaynaa ka maamul ahaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaloo soo dhaweynayaa TV-ga dawladda Puntland oo u dabaaldegno sanad guuradii 19aad ee ka soo wareegatay askaaskii dawladda Puntland runtii caaway habeen qaaliya oo ku weyn dhammaan ummadda reer Puntland qiimo gaar ah u leeyahay qof kasta Puntlander waxaan aad ugu faraxsanahay inay degmada Karaaxo ay la marka koowaad ka gasho sanad walba in la xuso iyadoo ay dhacday hadda ka hor xitaa deegaano ka balbalaaran inaanay xafladani ka qabsoomin balse waxaan aad ugu faraxsanahay inay yihiin dadka reer Rako dad jecel oo ay ku weyn tahay Puntlandernimadu iyo sidoo kale Soomaalinimadu labaduba 1 Agost oo ah sanad guuradii 19aad ee Puntland asaaskeedii oo ku beegnayd ilaa iyo 1998 haddana ay ku beegan tahay 2017 Agost insha Allah waxaan leenahay hambaliyo ugu dambeyntii xafladda ayaa waxa soo xiray gudoomiyaha isboortiska gobolka Karkaar Xiriis Caamir iyo gudoomiyaha degmada Karaaxo Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Saalax caawa aad iyo aad farxad noogu tahay annagoo dhisayna 1 Agoost oo ah sanad guuradii 19aad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay guul Rako waxay ku taal deegaanka ugu ballaaran ee degmooyinka Puntland waxaan jecelahay anigu inay ka weyn tahay Rako degmooyin laakiin ay tahay gobol horumarka khayriga oo ay degmadooda ku horumarsanayaan hadda waxa Soomaalidu ku mahmaadaa nimaan hadlin hooyadii wax ma siiso intaas waa ku dheeraaday baraarujinta Karaaxo waan rabo inay la tartanto deegaanka iyo degmooyinka ku soo herarsan si u gaarto ama uga horumarto ama gobol u qaadato Maxamuud Caamir TV-ga dawladda Puntland degmada Karaaxo